Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkayga fadlan hadday ugu cusub tahay subscribe-ka isa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida kaarkaada bangiga aad uga xiri lahayd crypto xabta haddii hadda soo degsanaysid crypto aan weli aan isdiiwaan gelinin waxaa sameysaa waxaa isticmaashaa linkigayga oo hoos ku qoran linkigaas markaa gelisid kadib sign up ku dhufo codeka markaa gelisid waxaa helaysaa lacag $25 oo welcome halaha kalena adaa ku darsanayo kadibna coinkaada ayaa iibsanaysaa. Okay, taas markaa kasoo gudbo tan labaad waxa waaye Telegram ayaa furtay. Telegramkaas marka linkigiisana hoos ayaa idiin soo dhigaya asxaabta oo ugu xiran fadlan Telegramkana igala socda insha Allah. Marka hadda waxaan rabaa marka inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan idin tusiyo sida kaarkaada ugu xiri lahayd dhinaca crypto. waxaa sameynaysaa crypto markaa soo kicisid home page-ka waa saan waaye afarta walaxna waa ujeedaan home account iyo track iyo card iyo coinska oo dhan oo wada safan oo wada jeedaan Bitcoin, Ethereum, Cardano iyo crypto.com. Okay, crypto.com ayaa ku dhufanaa saa ujeedaan crypto aan ku dhufanaa crypto aa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid meel ay ku qoran tahay buy CRO meeshaas ayaa ku dhufanaysaa kadib halkan ayuu ku keenaa marka page-kan saa hadda ugu jeedaan kun xabo oo CRO qiimihiisu waxaa waaye £552 wadanka Ingiriiska. marka hadda marab inaad gato sababta waxaa rabaa inaan tusi sida marka kaarkaada ugu xiri lahayd kaarkayga halkan ku jira marka waxaa rabaa inaan tusi sida kaarka ugu xiri lahayd meesha ay ku qoran tahay add credit ama debit card labada shirkad baa la ogol yahay ama credit ha noqdo ama debit card ha noqdo labadaba waxa ugu iibsan kartaa. Okay, marka waxaa ku dhufanaa meeshaas ay ku qoran tahay marka click siinaysaa page-ka kale ayuu ku geenaa marka. Okay, marka halkaas ku dhufatid kadib wuxuu ku keenaa page-kan waxaa waaye qaybta marka detailka oo kaarkaada magacaada iyo surname-kaada ayaa halkan ku qoraysaa iyo kaarka saddexda number oo ugu dambeeya marka wadan walba waa different waana wadanka Ingiriiska jooga dadka Ingiriiska oo ila joogana way fahmi karaan kaarka saddexda number meesha ay ku qoran tahay CVV meesha ku qoran waxa waaye saddexda number oo kaarka gadaashiisa ku qoran kaarkaada gadaashiisa saddex number oo ugu dambeeya ayaa jiro saddexda number ugu dambeeya ayaa halkaas gelinaysaa kadib date of expiry inta kale way fudujiin kaar numberka kaarkaada numberkiisa iyo magacaada kadib add ayaa ku dhufanaysaa kaarka marka add ayaa ku dhufanaysaa add kaar markaa dhahdid kadib waxaa isku dayanaa marka coinkeena koowaad inaa iibsano aniga marka halkan already waa ujeedaan waxaan idin tusinaa marka example ahaan idin tusinaa meesha ay ku qoran tahay buy VVS waa aragtiin meesha buy ay ku qoran tahay ayaa markaas ku dhufanaysaa kadib aniga hadda kaarkayga wuu ku jiraa kaarkayga meeshan wuu ku jiraa wuuna ii save garaysan yahay halkan waa marka meesha waxyaalaha lagu kala gato coinka marka tirada coinka always waxaa waaye hoos uu ku qoran yahay lacagta oo qiimihiisa oo coinkaas aa ku iibsanaysidna wuxuu ku qoran yahay qaybta kore. Okay, marka hadda example aan siinaa marka rabo kala kan 200 wali waxa waaye 200,000 200,000 waxay ka siinayaan £20 bas kadib buy ayaa ku dhufanaysaa marka buy marka ku dhufatid automatic qaybta kale ku geenaa confirm marka dhahdid qaybtan kale ayuu ku keenaa qaybtan waxa waaye amountiga laga goosanayo 200 coin waxa ku helaysaa £20 halkan markuu ku keenana waxa waaye lacagta iyo qiimaha wax dhan oo ku tusinaa saa ujeedaan totalkana wuxuu noqday £20.79 kadib confirm ayaa ku dhufanaysaa. hadda aniga confirm marab inaan ku dhufto sababtoo coinkaas waa haystaa waana iibsaday waxaana rabay inaan tusiyo sida kaarkaada bangiga aad ugu xiri lahayd crypto oo hadhowdana wax ugu iibsan lahayd marka kulay waa wada fahanteen aan filaa insha Allah asxaabta videogan waa video yar oo short fadlan waxaa isku daydaa inaad videogan dhamaysatid waayo step by step ha ka boodin dhameyso si aad adigana u fahantid asxaab badan ayaa soo weydiiyay marka insha Allah waxaan filaa inaad videogan ka heli doontaan make sure inaad like siisaan commentingina waa muhiim
commentingiina ii reeba insha allah waan aqri doonaa. asxaabta kalena iga sugayso inaan Binance aan usoo geliyo insha allah waa soo wadaa. videogan aan rabaa inaan hal mar aan dhameeyo insha allah, sababtoo crypto aan hal mar bilaabay. waxaan filaa inaa wada fahanteen asxaabta. insha allah videoga kale ay rabtiin inaan idiin soo duubo ama aan soo geliyo hoos igu reeba insha allah qaybta commentiga. taasna waxay ii tahay dhiirgelin. wixii su'aalaha fadlan hoos ugu reeba insha allah, anaana kasoo wada jawaabayo. hadday noqoto inay muuqaal noqoto, muuqaal ayaan idin tusin doonaa. waxaan filaa inaa wada fahanteen asxaabta. insha allah videogeena halaas ayuu ku egyahay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.